السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Haruun Maxamuud Axmed, soo gudbiyaha barnaamijka waa kuma ee ka baxa page-ka One Liverpool FC Somalian Fans amba channelka YouTube-ka ee Liverpool FC Somalian Fans Official. barnaamijka waa kuma maanta waxa inoogu balansan Arnold, ciyaaryahankan oo in badan oo ka mid ah taageerayaalka ku taxan page-ka aan kor ku soo xusnay ee inaga soo codsadeen isbuucyadii la soo dhaafay. Arnold magaciisa oo dhameystiran waa Trent John Alexander Arnold, waxa uu ku dhashay 7 Oktoobar sanadii 1998 sidoo kalena ku barbaaray xaafadda West Derby ee magaalada Liverpool ee dalka England. xirfadiisu waa kubadda cagta, gaar ahaan booska difaaca dhanka midig. waxa uu akadeemiyadda kooxda Liverpool ku soo biiray sanadku markuu ahaa 2004, waxayna ahayd markii ugu horeysay ee uu ciyaaro waaweynka sanadii 2016. wuxuu kooxda u saftay 80 kulan, asagoo wali ku guda jiray akadeemiyadiisa ayuu la kulmay Steve G oo u sheegay inuu yeelan karo amba yeelan doono mustaqbal ifaya. dabadeed sanadii 2016 ayaa tababare Jurgen Klopp u doortay inuu ka mid noqdo kooxda waaweynka ah. kulankiisa ugu horeeyay ee heer caalami ah oo u ciyaaro kooxdan waxay ahayd ciyaar kooxda Liverpool ay 2-1 uga adkaatay kooxda Tottenham 4 Oktoobar sanadku markuu ahaa 2016. 8 November isla sanadkaasina waxa ay kooxda shaacisay in uu taa u saxiixay heshiis waqti dheer ah. Alexander Arnold abaalmarinadii uu ku guuleystay waxaa ka mid ah waxa uu ku guuleystay ciyaaryahanka da'yarka sanadku markuu ahaa 2017 iyo weliba sanadii 2018. sidoo kale waxa uu ka mid noqday kooxda da'yarta ciyaaryahanada ugu fiican horyaalka Premier League. sidoo kale waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu da'yara ee safta 2 final oo Champions League ah oo xiriir ah, iyo ciyaaryahankii afraad ee ugu da'yara ee u ciyaaray xulka England kulan heer caalami ah. haatan Alexander Arnold waxa uu ku jiraa xilligiisii ugu fiicnaa ee noloshiisa. Alexander Arnold waa ay badan yihiin xusuusaha uu ku leeyahay magaalada Liverpool ama kooxdan Liverpool, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah goolkii uu ku caawiyay kooxda Barcelona afardhamaadkii Champions League sanadkii 2018-2019. intaan ka sii badan waxa aad ka heli kartaa diiwaanka ciyaaryahanada 2018 World Cup-ka iyo sidoo kale archiveska kooxda Liverpool Football Club ama Wikipedia. xuquuqda muuqaalkan waxaa gaar u leh Liverpool FC Somalian Fans Official. Nabadino.